munaasabadan lagu weyneynayay hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed isla markaana lagu soo dhaweynayay gudoomiyaha cusub ee degmada Waaberi ee gobolka Banaadir oo ay soo qabanqaabiyeen ururka dhalinyarada mideynta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Waaberi, dhalinyaro, abwaano, haween iyo dhalinyarada ururka mideynta Koonfur Galbeed Soomaaliya, waxaana lagu soo bandhigay qalabka hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo muhiimadda dhaqanku u leeyahay bulshada. Qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa ka hadlay muhiimadda hiddaha iyo dhaqanka. Gudoomiyaha cusub degmada Waaberi ee gobolka Banaadir oo isna ka hadlay munaasabada ayaa ku booriyey dhalinyaradu inay ka shaqeeyaan horumarka iyo difaacidda dalka. Gabagabadii munaasabada ayaa gudoomiyaha ururka mideynta Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xogayaha ururkaasi iyo dhammaan dhalinyarada ururka waxa ay si wada jir ah u guddoonsiiyeen gudoomiyaha cusub degmada Waaberi ee gobolka Banaadir shahaado sharaf oo ay ugu talagaleen. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.